wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xay Daljir ayaa kormeerindheena ku tagay goobihii saaka sida tooska uga bilaabantay qaadashada kaarka diiwaangelinta doorashooyinka Soomaaliland markii ay kormeerkada soo dhameysteen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo barasaabka gobolka Togdheer waxay ka warbixiyeen goobihii ay kormeerka ku soo mareen sida ay uga socoto qaadashada kaarka codbixinta maanta ay tahay bishii 27 bishii 2020 waxa si habsami uga bilaabantay gobolka Togdheer diiwaangelintii codbixiyaasha waxa imika la gelayaa 4 casho saddex qaybood oo kala ah qofkii qaan gaadhay qofkii aan hore u qaadan qofkii markii hore sameeyay inta laba jeer uu galay ay ka gubatay oo dub loogu waxayn ayaa maanta gelaya waxaan u dardaarmaya dadka dadweynaha reer Burco saddexda qaybood wixii aan ka haynin inaan gelin waxa xigi doonta 14 maalmood oo dambe oo qofkii soo bedelay matalan caynama asigoo jooga u bedelanay Burco iyo qofkii ma taqaana kaarku hore uga lumay waxa la geliyay 14 casho dambe la geliyay marka maanta saddexda qaybood weeye waxaan ku boorinayaa dadweynaha reer Burco inaanu qof laba jeer qaadin qof markii hore qaatay kaar inaanu soo maanta mid labaad qaado uu gubanaya labadaba isla gubanayaan waa masiir qaran waa masiir dawladeed waa masiir ummadeed waa masiirkii aynu soo halkanay marka inaynu ilaalino kaarkeena oo aynu soo baxno oo aynu qaadano carruurtii qaan gaadhay iminka iyo ma taqaan kuwii aan hore u qaadan iyo kuwii markii hore laba jeer galay intaas maanta 4 casho qaadanaysa inay soo yimaadaan halkan waxaan uga mahadnaqayaa dadweynaha reer Burco oo aad iyo aad ugu diyaar garoobay si diiwaangelintaasi habsame u qaadan lahayn si nabadgelyo u qaadan lahayn isaga waxaan joognaa gobolka Togdheer si fiican bay uga bilaabantay aad iyo aad habsame bay u socotaa ciidamada amnigu si fiican bay uga shaqaynayaan maamulka gobolka barasaabka iyo maamulka degmada maayarka iyo maamulka degmaduna aad bay uga shaqaynayaan dadweynuhu si fiican bay uga qayb galayaan shaqaalaha komishanka ka shaqaynaya aad iyo aad bay si fiican bay u shaqaynayaan aan leenahay dadweynaha qaybta saddexaad ee imika diiwaangelintu ay ka soconayso inay si fiican uga qayb galaan inay si fiican isu abaabulaan waayeelka iyo dadweynaha cuqaasha iyo salaadiinta iyo madaxda deegaamada iyo tuulooyinkuna inay si fiican isu abaabulaan diiwaangelintu doorashada ku xigta ee golaha deegaanka iyo golaha wakiilada 5 sanadood dabadeed bay noqonaysaa qofna uu mustaqbalkiisa 5 sanadood iswaasiinin waxaan leenahay hal dadaalo waayo kasta oo jirana laga hawlgalo aad iyo aad baan u hambaleynayaa aad iyo aad baan uga codsanaynaa uga adkaynaynaa gobolada iyo degmooyinka maamulkooda iyo dadweynuhuba inay hawsha aad iyo aad u qabtaan Cabdi Qani Baaf Star TV magaalada Burco.